Bismillaah, waxaan ku guda jirnay shanta dareemoodiyaasha ayaan ku guda jirnay. Waxaan kasoo hadalnay eyes ayaan kasoo hadalnay oo noo qaabilsanaa aragga. Waxaan kasoo hadalnay nose iyo waxaan kasoo hadalnay tongue iyaga noo qaabilsanaayeen. Nose oo noo qaabilsanaa smell oo urinta, iyo tongue oo noo qaabilsanaa taste ee dhadhanka. Haddana waxaan ka hadlaynaa marka hadduu Ilaahay idmo ear ayaan ka hadlaynaa oo noo qaabilsan marka hearing and balances, waa maqalka iyo isku dheelitirka. Marka saasaan dhahayna waxaa waaye maqalka markii oo dhagtiin soo galay wuxuu u baahan yahay marka in oo la dheelitiro. Cod waxaa arkaysaa iska cod sare iyo cod hoose, marka iyo cod iska dhexdhexaad ah. Marka waa la isku dheelitirayaa, marka waa balance, sidaas loo dhahay. Marka waxaa codka ku sareeya midka sareeya, marka waxaa waaye normal in laga dhigaa la rabaa. Marka balance dhegta ayay noo qaabilsan qaybteeda hawaa clear. Insha Allah dhegtii ayaan u gudagelaynaa. Marka ear is the of the sense organs response for hearing and balance. Waa dhegta waa xubin ka mid ah xubnaha dareemayaasha waaye. Waxayna mas'uul ay ka tahay marka maqalka iyo isku dheelitirka vertebrate ee laf-dhabareyda. That is waxaa waaye most mammals badanaa naasleyda is made up waxay ka samaysan yihiin marka dhagahooda ilaa iyo 3 qeybood ayay ka kooban yihiin, ama 3 parts. oo an outer parts waxaa qeyb sare that collect sounds, waxay soo aruurinaysaa marka qeybta sare codka ay soo aruurinaysaa. Middle parts that carry sounds, codkii marka qeybta sare ay soo aruurisay ayaa ay kasoo qaadaysaa. Marka dan ka bacdina waxaa waaye an inner parts that receive sounds, qeybta marka hoose marka waxay helaysaa marka inner partska ah, helaysaa marka codka ay helaysaa. An send marka codkii marka way diray send nerve signals fariimihii marka waxay u diraysaa marka codka ay heshay innerta oo ka heshay marka middle ear ayaan kasii heshay marka outer parts. Dan markaas brain ay u diraysaa marka madani oo inner earska ah. Structure of ear ama qaab dhismeedka ay ka kooban tahay dhegta, ama anatomy of the ear. Qaab dhismeedka marka ay ka kooban tahay dhegta waxay ka kooban tahay marka 3 qeybood ayaa ay ka kooban tahay oo kala ah marka outer ear, middle ear iyo inner ear. Qeyb sare oo outer ear loo yaqaano, iyo qeyb dhexe oo middle ear loo yaqaano, iyo qeyb hoose ee inner ear loo yaqaano. Outer ear dhegta outer ear qeybteeda sare waxay ka kooban tahay bina or amise auricularis ayaa loo yaqaana. Qeybtan oo banaanka taala ayaa waxaa loo yaqaana horka bina. Tamban waxay kala ka kooban tahay marka qeybta kale oo dhexe canalis oo dhexe ayay ka kooban tahay marka oo loo yaqaano ear canal oo amise external auditory canalis. Dhegta sidoo kale waxay ka kooban tahay marka tambanum ear drum, qeybta waxaa wareega waxaa loo yaqaana oo markii codka soo galo dhegta qeybtan oo wareeg sidii oo u sameysan oo digsi camal u sameysan ayaa waxaa loo yaqaana tympanic ear drum, ama qeybta gurbaanka markii hadalka meesha kusoo dhaco way gariiraysaa. Waxay leedahay marka qeybtaas marka tympanic membrane ay leedahay xoob oo ay leedahay. Sidoo kale middle ear qeybta dhexe idan waxay ka kooban tahay marka bones lafa ay ka kooban tahay oo malleus loo yaqaano, iyo malleus lafa ay ka kooban tahay oo 3 lafood ay ka kooban tahay oo kala ah marka malleus iyo incus iyo stapes. Malleus another name ka loo yaqaano waxaa waaye hammer waaye. Stapes oo another incus oo another name ka loo yaqaano waxaa anvil waaye. Stapes waxaa waaye another name ka loo yaqaano waxaa waaye stirrup ayaa loo yaqaanaa. Dhegta qeybteeda dhexe waxay ka kooban tahay sidoo kale
murqo ay ka kooban tahay oo laba murqo oo kala ah marka stabius iyo tensor tambani. dhegta sidoo kale waxay ka kooban tahay marka kuwo oo sidii oo gacanta camal u samaysan ama sidii kubadda camal u samaysan, iyo roundku sidoo warwareeg camal u samaysan oo oval window iyo round window oo la kala yiraahdo. waxaa kaloo leedahay dhegta waxaa waay qayb kale oo isku xiraysa marka oo sanka iyo dhegta isku xiraysa ayaa jirto oo tubo dheer oo ishtagianis tubulis ayaa loo yaqaanaa. inner ear haddii u guda galno marka dhegta qaybteeda hoose waxay ka kooban tahay marka iyadana cochlear qaybta u qaabilsan marka dhegta markii soo gala oo jabaqda soo gasho hadalkii iyo isku dheelitirkii u qaabilsan cochlear loo yaqaano. semicircular ay ka kooban tahay oo wareeg oo half wareeg oo marka hawaaye ay yeelanayso marka oo ilaa iyo 3 oo anterior iyo lateral iyo posterior. semicircular another name ayaa loo yaqaano oo labyrinthine ayaa loo yaqaano oo waxay ka koobnaan kartaa marka bone or amise membranous waa laf ama waxawaaye xuub ay ka koobnaan kartaa. auditory nerves sidoo kale dhegta qaybteeda hoose waxay ka kooban tahay marka oo auditory nerves oo dareemayaal oo u qaabilsan maqalka oo isku xiraya marka maskaxda iyo dhegta. sidoo kale marka midaan oo waxaa leedahay waxaa jira marka cochlear oo waxay sameynayaan iyagana ilaa iyo 3 ayay sameynayaan oo spira lamina iyo scala vestibula iyo scal tambanum. waxaa jirta marka dhegta waxay sameynaysaa marka oo tubooyin ay sameynaysaa ama dhagtiska oo vestibula dhagtiska iyo cochlear dhagti iyo tympanic iyo dhagtis loo yaqaano. sharaxaad dheeraad ah haddii aan ka bixino marka oo parties of the iriska qeybaha oo dhiga meelahaas ay ku kala yaalaan saad aad ka aragtiinba oo external iriska waa aragtiin waxaa filera ayaa lagu muujiyey. qaybta kale waxaa waaye bonis ayaa ugu muhiimsan qaybta dhexe oo bonis of the middle ears waa kaas iyagana waa hamar oo another nameska loo yaqaanay malias iyo anfilo another nameka loo yaqaano stabius incas oo stirabna oo another nameka loo yaqaano iyadana ay ahayd stabis. marka waxay u wada shaqeeyaan marka si wada jir ayay u wada shaqeeyaan. marka waxaa lagu kala muujiyay marka kalara ayaa lagu kala muujiyay iyagana. marka qaybtaas waa qaybta marka ear dramiska horta ear dramiska uu gudbiyo codka ear dramiska markuu gudbidan ka bacdina waxaa waaye middle earska ay isu gudbiyaan. middle earska marka lafihi ayaa ugu muhiimsan oo 3 ah. ka bacdina waxaa waaye waxay usii gudbinayaan marka oo eegan lafihi eegan waxay usii gudbinayaan ina ear dhegta qaybta dhexe ina waxaa waaye qeybahaas ay ka kooban tahay marka oo marka oo semicircular dhagtiska iyo anterior iyo lateral posterior kala ah iyo vestibula cochlear dhagtis iyo cochlear dhagtis iyo tympanic dhagtis. lemphigan waxaa kana hore soo sheegnay waxaa bone iyo membranous ka kooban dhaanay iyo neerfaha oo u keenaya dhegta vestibula cochlear nerveska loo yaqaano. qaybtaas kalena aad aragtiin waxaa membranuska ay wuxuu yeelanayaa marka laba wuxuu yeelanayaa utricalis iyo hawaaye sacules. dhegta iyadana sidoo kale oo marka waxaa u keeno dhiiga waxaa u keena dhiiga dhegta waxaa waaye labyrinthis
L3 iyo labyrinthine xididka loo yaqaano ayaa u keeno. Marka waxaa u gudagelaynaa marka qaabka marka dhegta codka ay u kala gudbinaysa ayaan baranayna marka. The ears are organ that provide two main functions. Dhegta waxaa marka waa xubin waaye waxayna bixinaysaa marka oo laba shaqo oo muhiim ah oo kala marka hearing and balance waxa waaye isku dheelitir iyo maqal. That marka depend on special receptors called higher cells. Waxaana marka ku xiran tahay marka dareem qabtayaasha gaarka ah loo yaqaano unugyada timaha. ها marka qaabka u kala gudbiyaan marka waxa mas'uulka ah marka qeybaha dhegta ay ka kooban tahay. The ear dhegta is divided into three main parts. Waxa waaye dhegta waxay ka kooban tahay marka hore u soo sheegnay saddex qeybood ay ka kooban tahay. Qaybta sare ayaa horta oo waxa kusoo dhacayo codkii oo outer ears. The middle ears ayaa usii gudbinayaan marka qaybta outerka earska middle earska ay soo gudbinayaan. Middle earska iyadana waxay soo gudbinaysaa marka inner earska ay soo gudbinaysaa. Inner earska marka waxa ka buuxa marka dhacaana ayaa ka buuxo. The inner ear is filled with fluid. Waxa ka buuxa marka inner ear dhacaano. The inner ear marka also sidoo kale waxay leedahay marka the receptors dareem qabtayaal for sounds which convert fluid motion into electrical signal known as action potentials that are sent to the brain to enable sound perception. Macnaha waxaa laga wadaa codkii ama jawaqtii oo la qabtay waxaa loo bedelaya marka convert waa la bedelaya marka iyagoo dhacaan ahaan ah oo dhacaan soconayo intuu marka waxaa laga dhigaa marka fariimo oo electrical ah oo loo yaqaan marka known as fariimaas loo yaqaan marka known as marka waxa loo yaqaan marka as waxa waaye action potential ayaa loo yaqaan oo hore u soo baranay fariimaan oo action aan ku soo baranay marka nervous systemska oo action iyo resting. Actionka waxa loo yaqaan marka markii oo sodiumka gudaha la soo gelinayo oo potassium banaanka loo saarayo that are waxa marka send waa la dirayaa marka fariimihii to the brain waxa loo dirayaa marka maskaxda to the enable marka sound perception. Waxay qabanaysaa marka jawaqdii ay qabanaysaa marka inay qawada ay awoodaysaa marka maskaxda marka waxay keenayaan marka hearing iyo balance ay keenaan. Hearing and balance waa hearing oo malkan balance iyo isku dheelitirka are two main function of the ear. Waxa laba shaqo ugu weyn ee dhegta qabanayso. Labada shaqo ugu weyn ee dhegta qabanayso codkana wuxuu ka soo bilaabanayaa marka from a soft sound hawa jawaq oo khafiif ah ama jilicsan laag marka whisperinkiis waa sida cod yar waaye to a loud sound wuxuu noqonayaa codka marka cod weyn side ah ayuu noqonayaa oo culus such as marka codkaasna waxaa ka imaada marka karoor jirin meelaha oo buuxa ah sporting events meelaha oo ka dhacayaan oo ciyaaraha special receptors dareem qabtayaasha oo gaarka ah in the ears can detect both the volume and the highness and the lowness of the sounds. Dareem qabtayaasha marka dhegta ku yaalaan waxay ogaanayaan marka codka oo sare iyo codka hoose labada bay ogaanayaan. Dareem qabtayaashidan ka bacd waxaa lagu sii gudbinayaa marka oo canals ku yaalaan marka inner earska ku yaalaan iyo outer earska ku yaalaan oo kala ah tambaniga iyo semicircularska. Marka canalska marinka inner earska oo ku yaalaan are responsible waxa waaye kuwan canalskan waxay ku yaalaan marka dhegta qaybteeda hoose ay ku yaalaan waxayna mas'uulkiin marka for sense of balances dareemaha isku dheelitirka ay mas'uulkiin oo amase equilibrium isla egtada ama isku jaangoynta figure 1.16 ama jaantuska 1.1 leh
illustrate the structure of ear waxaa lagu tusay marka qaab dhismeedka ay dhegta ay ka kooban tahay. Hearing coming wuxuu imaanaya marka maqalka markii marka when sound waves markii marka oo hirka jawaqda ay saameyso marka particles in the iris waxyaabaha oo particleska oo la socdo marka hawada la socdo to the vibrate marka ay gariir ay sameeyaan ayaa waxa imaanaya marka oo hearing maqal imaanaya. Hirirka marka oo jawaqda wili waxa way saameyntii way sii wadaya marka sound waves hirirka jawaqda waxay sababaan marka dabanam qaybta waxa wareega ay oo saameynayaan oo gurbaanta u eg to vibrate marka waa gariir marka qaybtaasi and iyo the vibration traveling through the bones of the middle iris to the cochlear marka oo gariiro marka gariirkii waxa lagu kaxeynaa marka qaybta dhexe ee dhegta ee lagu kaxeynayo oo lafa ah oo kuwaas oo marka eegan usii gudbinayaan lafaha oo ka kooban marka saddex waay waa malleus incus iyo stapes dan ka bacdina waa gariirka waa si soconaya marka ama xawaay wixii sababadii wili waa si soconaysaa marka waxa loo sii gudbinaya marka qaybta xawaay dhegta qaybta hoose ee loo gudbinayo to the cochlear marka sigan uu sii gudbinaya marka wuxuu sii gudbinaya higher cells unugyada oo timaha ay sii gudbinaya inta cochlear ku yaalo oo generate nerves waxa impulse waa guji dareemoodiyaal waayo guji dareemoodiyaal ayuu abuuraya dan ka bacdana marka which are sent waa la diraya marka to the brain waxa loo diraya marka maskaxda ayaa loo diraya through the auditory nerves iyadoo loo marinayo marka qaybta oo dareemoodiyaasha oo maqalka dhagta sidoo kale waxay sameynaysaa marka balance waa codki soo galay waa isku dheelitiraysaa marka waxaan u qaabilsan marka maskaxda ay u qaabilsan dareemoodaha loo yaqaan auditory nerves. The inner ears also contain organs for balance dhegta qaybteeda hoose waxay ka kooban tahay marka xibniyaal oo u qaabilsan marka isku dheelitir include marka three semicircular canals waxa saddex oo half wareeg oo canals oo eg in koonta oo kala ah marka oo anterior lateral iyo posterior. The semicircular canals transmit information idan waxay gudbinaysaa marka akhbaar ay gudbinaysaa about ku saabsan body position and balance isku dheelitir iyo meeleynta jidhka waxa laga wadaa dhegta ayaa laga wadaa to the brain waxaana ay geynaysaa marka maskaxda ay geynaysaa. The three canals saddexda canalska oo ay kala ahaayeen mana vestibular ductus iyo cochlear ductus iyo tympanic ductus ka kala ahaayeen waxay sameynayaan marka waxa ka buuxo marka afan the three canals saddexda canal are positioned at right angles to the to one another waxa lagu midba midka kale marka ayaa waxa waaye ayaa la meelay marka waxa waaye saddexda canals maxaa marka mid kale ayaa waxa waaye la meelay laakiin sida marka the cochlear qaybta waxa u qaabilsan dhegta waxa hearing iyo balance ka u qaabilsan they are fluid and you line it with higher cells waxa ka buuxo marka dhacaan ayaa ka buuxo kuwaas oo marka meeleynay ama waxa joogteynay marka unugyada tinta when the position of your body heat changes markii madaxaagi oo la bedelo halkii oo lagu meelay oo laga bedelo fluid move through the canals dhacaanadii markuu way dhaqaaqayaan iyagoo maraya marka marinadii iyagoo marayaan this cause marka tani waxa sidoo kale waxay sababaysaa the higher cells to bend in unugyadii timaha ay qalocsamaan which in turn send nerve impulse guji dareemoodiyaashan waa isbedelaya marka tudda waxaan la geynayaa marka isbedelkaasi the brain maskaxda ay la geynayaa the brain then maskaxdi then kadib in able to determine your position is and how whether your body is still or in motion marka maskaxda marka waxay awoodaa marka kadib
inay go'aansato marka jirkan waxa waaye oo la meeleeyay ama dhegtan oo la meeleeyay oo waxa waaye isku sii socoto ayaa waxa waaye waxay go'aansanaysaa marka inay waxa dhegtii ay ku meeleyso marka xagal oo 90 oo degree ay ku meeleyso oo isleegtada ah. Function of the ear hore uu soo hadalnay shaqada dhegta ay qabanayso waa in badan waan soo hadalnay markii oo qaabka waa dhegta codka loo soo gudbina kuwaas ku filan. Marka function of the ear soo koobeyna the ear are organ that provide two main function hearing and balance that depend on specialized receptors called haya cells. Dhegtu waxa waaye waxay soo gudbisaa laba shaqo oo waaweyn ama laba shaqo oo muhiim ah ay soo gudbisaa oo kala ah marka hearing and balance waxa waaye maqalka iyo isku dheelitirka leen waxa waaye waxa in la isku dheelitira loo baahan yahay samaan marka waxay ku xiran tahay marka codadkaas la soo gudbinayo waxay ku xiran tahay marka dareem qabtayaal gaar ay ku xiran tahay oo kuwaas loo yaqaan marka haya cells loo yaqaano hadii ay gudub galno marka cudurada ku dhaca marka dhagaha disease of ears cudurada ku dhaca marka dhagaha waxa ugu horeeya marka otosclerosis ay ugu horeeyo abnormal growth of small bones in the middle ears lafaha dhegta qaybta dhexe waxa waa lafaha yaryar ku yeelan oo saddexda ahaayeen malleus iyo incus iyo stapes kala ahaayeen ay waxa ay noqonayaan marka kuwa oo koriinkooda oo saaid ah oo xad dhaaf ah cudurkaas ayaa loo yaqaan marka otosclerosis loo yaqaan. Otitis-na cudurkan ayagana waxa inflammation of the ear canals oo dhegta inay waxa waaye oo qaybteeda oo canalska marinka oo kasoo bilaawanayo external auditory canals kasoo bilaawanayo ay waxa noqonaya marka kuwa oo caabuq yeesha iyo kaas waxa loo yaqaan marka cudurkaas otitis loo yaqaan. Hyperacusis waxa waaye is hearing disorder failure isagana waxa waaye oo in codkii soo galay dhegta soo galay inuu noqdo marka mid oo high ah marka aan controlnayn kaas waxa loo yaqaan marka oo hyperacusis loo yaqaan. sidoo kale dhegta cudurada ku dhaca waxa kamid ah marka deafness is a complete inabilities waxa waaye of hear sounds ana waxa waaye qofkani si dhameystiran markii aan u awoodin waxa waaye jabaqda maqalka markii u awoodin ayaa waxa loo yaqaan deafness waxa waaye cudurkaas loo yaqaan waa cudur Soomaalidu waxay u magac daraan dhagool cashirkeen halkaas aan ku soo keenayna waxaan soo baranay ears ayaan soo baranay ears waxaan ka soo baranay waxa waaye ears maxaa la hayaa qaab dhismeedka ears uu ka kooban yahay qaabka waxa waaye earska codadka kala gudbinayaan sidoo kale waxaan soo baranay shaqooyinka iyo waxaan soo baranay cudurada halkaas ayaan ku soo keenayna marka aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin dhageysigiina.